asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka idinkula wadaagna sheekooyinka xiisaha badan ee bollywoodkii koonfur hindiya ka jiraan fadlan daawad haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan sabskraaib inoo saar saaxiibada joogtadana u xira muuqaalka noo sheergaree waxaa mar koowaad ku bilaabana xidigta caanka katina kayf ayaa gebi ahaanba wax kama jiraan ku tilmaamta sheekada ku aadan in ayada iyo dabcan saaxiibkeed ama lamaankeed viki guushal ay aqal geli doonaan taariikhda markay tahay 7 Diseembar ilaa 9 Diseembar inta u dhexeyso dabiiqada sanadkan xilli warbaahinta hindiya ay sheegeen katina kayf dabcan arooskeed inay ku aadin doonto isla toddobaadku aroosi doona ninka lagu magacaabo Ranbir Kapoor oo jaceylkeeda hore ahaan jiro haatan la aqalgala xidigta lagu magacaabo Alia Bhatt sida diiwaan gashan toddobaadka ugu horeeya December laakiin katina kayf sheekadan soo dabac shabakada lagu magacaabo Times of India way beenisay waxaana sheegtay ayadii Vicky Gushal weli inaysan gaarin marxalad ku aadan guur inay galaan dabiiqada sanadkan si kastaba haatan sheekooyinka hindiya ka jira arrimaha nolosha jilaayasha taabanaya mowduuc weyn waxaa qaadanaysa katina kayf oo la leeyahay dabcan xidigtan waxay isfahmeen Vicky Gushal oo 3 sano ugu dambeysay xiriir jaceylka la dhexeeyay ugu dambeyntiin waxay u badan tahay xiriirkooda rasmi ka dhigi doonaan waxaana macquul ah leeyahay katina kayf inay ka hormarto Ranbir Kapoor oo asagana dabiiqada sanadkan la aqal geli doona Alia Bhatt marka sheekooyinka hindiya maanta ka jira waxay tahay ex-couples ama lamaanihii hore ayaa dabcan qof walba qof kale wuxuu kula tartamaa arooska inuu kaga hormaro dhinaca Ranbir Kapoor markii la fiiriyo wixiisa ugu qirta ninkan asagii Alia Bhatt xiriirka dhexe banaanku yaala waxaana lagu wadaa dabiiqada sanadkan arooskooda inuu dhaco sida la wada ogyahay gaar ahaan toddobaadka ugu horeeya December inta u dhexeyso 7 December ilaa 9 December marka katina kayf ayaa la sheegay ayadana inay jawaab bixin doonto waxay diidan tahay in dabcan doobnimada looga tago waxay rabtaa Vicky Gushal nolosha in la wadaagta laakiin qorshaha katina kayf ee diyaarinaysay warbaahinta dabcan ka shifeen oo banaanka soo dhigan xidigtan haatan way beenisay laakiin waxaa la sugi doonaa hadduu alla idmo toddobaadka ugu horeeya December mar Ranbir Kapoor iyo Alia Bhatt aqal geli doonaan mise katina kayf Vicky Gushal fadlan aragtidiina ka dhiibta qodobkan xiisaha badan oo la leeyahay lamaanihii hore Ranbir Kapoor iyo katina kayf qof walba wuxuu doonayaa inuu ku hormaro xilliga rasmiga guursan lahaa bal markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan sheeka ku aadan xidigta caanka laga dambeeyay jiray barisamaadkii Urmila Matondgar waxay garab istaagtay Shaaruq waxayna Urmila tiraaday kan waa midka dabcan ugu cajaa'ibsan markay noqoto dhanka sharafta dulqaadka biseelka iyo adkaysiga uu leeyahay waxay tiraahday Shaaruqan qof lamid ma jiro waa aaba adkaysi badan waa bini aadan adkaysi badan waa bini aadan qalbi wanaagsan waxay tiraahday 28 maalmood ugu dambeysay xanuunka uu dareemay qof dabcan qarsan kara ma jirin waxay tiraahday qof kasta hadii dhibaatadan ay ku dhicileed afku furan lahaa laakiin waxay tiraahday Urmila Matondgar Shaaruqan wuxuu ka warsugay sharciga ugu dambeyntiina sharcigu ku guuleystay sidoo kale waxay tiraahday Urmila waan ka xumahay wiilka Aryan Khan inuu xirnaa ku dhawaad muddo bil ah ayadoo aan wax dambi lagu helin sadartee marka gabadhan daawadayaasha qiimo badan waxay garab istaagtay Shaaruqan dhawaanahana dhanka siyaasadda uu wacatay oo 2 sano ka hor markii la qabanay doorashada guud ee Hindi waxay u tartantay xildhibaanimo oo gobolka dabcan Maharashtra ka gashay balse ku guuleysan waasi Urmila Matondgar dhawaanaha lagu ma arkin saaxada film jelista dhanka siyaasadda uu wacatay haatan waa qof saameyn la sadartay waxay garab istaagtay Shaaruqan iyo wiilkiis Aryan Khan waxayna tiraaday waxaan rajeynayaa hadda kadib dhibaato noocan oo kale inaysan ku dhicin qof caan inta badan waxay tiraahday dadka caanka celebrity-ga ah waa la ugaarsadaa sadartay waxay tiraahday Shaaruqan dhibaatada gaartay qof ay ku dhacdo ma lahan haddana waxay tiraahday waa geesi sharaf badan oo dulqaatay aamusay sidoo kale ku dadaal ugu dambeyntii wiilkiis cadaalad inuu helo waxay tiraahday dabcan waxaan bogaadina maxkamad sarban baa go'aankay qaadatay laakiin Urmila waxay saroogsantahay sidii qaabka darna Shaaruqan loola dhaqmay iyo wiilkiis dhibaatada la marsiiyay ayadoo aan wax xukun lagu ridin muddo bil in la iska haystay markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan update ku aadan Shaaruqan shaqooyinka qabyada ka sababta ah ku dhawaad 4 toddobaad ugu dambeysay SRK wax shaqo u qabta ma jirto waxa bendin u ahayn ama dabcan qabyo ugu jiraan filimada waaweyn ka mid yihiin Bathan iyo soo kala director Atli filimku uu sameeyay xitaa filimka Tiger 3 Salman Khan hogaamiye kana Shaaruqan wuxuu ku leeyahay door marti ah haatan kiiska Aryan Khan Shaaruqan wuu soo gabagabeeyay wiilkiisa waxa lagu soo daayay damaanad waxa lagu wadaa Shaaruqan bartamaha bisha November ee nagu soo foolay shaqada film jelista inuu ku soo laabto daawadayaasha qiimaha badan bisha November ee maalinta Brita bilaaban doonto waxa lagu wadaa inay u tahay SRK bil u qaasay maadaama 2 bisha November u dabaaldegi doono sanad guuridiisa sidoo kale waxa uu xigi doonto 13 bisha November in wiilkiisa Aryan Khan sanad guuridiisa 24 noqon doonto markuu hawlahaas ka dhamaado kadib SRK wuxuu bilaabi doonaa jadwalka ugu muhiimsan filimka Bathan asigoo dhankaas Spain aadi doona wuxuuna ku soo duubi doonaa 2 heeso muhiim ah iyo muuqaalo action waliba filimka Bathan waxa la sheegay haatan waxa uu harsan jadwal u dhaxeeya 20 maalmood ilaa ay dabcan 22 maalmood waxayna u dhimantay inuu soo gabagabeyn doono dhinaca kale filimka kale director Atli uu sameynayo oo actionku Shaaruqan ku xarakeynaa sidoo kale saddex mar laba door inuu ku matalay waxaa la ogaaday filimkan inuu gelin doono jadwal gaaray ilaa 180 maalmood sadartee filimkan waqti badan u baahan SRK wuxuu rabaa markii hore inuu iska dhameystiro filimka Bathan iyo sidoo kale filimka Tiger 3
oo jadwal 5 maalmood kaliya uu ku leeyahay kadib wuxuu u jeesan doonaa director Atlee filimka uu sameeyay oo uu dabcan doonaya ilaa Febraayo ama Maars 2022 inuu kusoo gabagabeeyo marka SRK shaqadu kusoo laaban doonaa bartamaha bisha November ee nagu soo fool haduu alla idmo bal markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan Rockin Star yaash ayaa dabcan iska murugeysan maalmihii ugu dambeystan iyo markii uu geeriyooday superstar-ka dhankaasi laga dambeeyay reer Canada ee isku gobolkii ninka lagu magacaabo Puneet Rajkumar saaxiibada qiimaha badan Puneet Rajkumar geeridiis waxay taabatay dhammaan fanka Hindi oo idin laakse gaare fanka waxay taabatay dhankaasi Karnataka ka jiro ee loo yaqaan Sandalwood xaruntoodana ee tahay magaalada Bangalore Rockin Star yaash iyo soo kale Puneet Rajkumar waxaa dhacday intuusan geeriyoon Puneet Rajkumar 24 saac ka hor ayaa waxay isugu imaadeen xafladda weyn lagu soo bandhigay filimka lagu magacaabo Bajrangi 2 oo uu hogaamiyay ka Puneet Rajkumar walaalkiisa ninka lagu magacaabo Dr. Shiva Rajkumar waxaa dhacday masraxii goobta lagu soo bandhigay filimkaas in Puneet Rajkumar iyo soo kale yaash goobta ay ku ciyaareen dance ay sameeyeen meesha ku kaftameen waxa uu xigtay dabcan saacado kadib in yaash ay soo gaartay geerida Puneet Rajkumar oo uu dabcan wadnaha istaagay waxa la weekend-ga yaash wuxuu ku jiraa xaalad murugo ah ilaa iminkan wuxuu aamin ilaa geerida kadiska ku imaaday saaxiibkiis Puneet Rajkumar sidoo kale shakhsiyaadka aad ugu dhow yaash waxay sheegeen superstar-ka inuu aad u murugeysan yahay sidoo kale daawadayaasha qaan badan ilaa iminka uu ka naxsan yahay geerida ku timaaday saaxiibkiis yaash markii la fiiro dhanka shaqada waxa uu diyaarsan filimkiisa weyn KGF Chapter 2 oo la daawan doona bartamaha bisha Abriil ee sanadka nagu soo fool leh halka markii la fiiriyo Puneet Rajkumar kii geeriyo filimkiisa ugu dambeeyay wuxuu ahaa mashruuca lagu magacaabo Farathna oo la daawado bishii Abriil ee horaantii sanadkan daawadayaasha qiimaha badan ciwaanada kala soo qaadan karna waxaa qayb ka filimka lagu magacaabo Minal Murali waa filim dabcan superhero waana filimkii ugu horeeyay Malayalam oo dabcan superhero lagu matalay waxaana hogaamiyay actorka lagu magacaabo Tovino Thomas filimkan waxaa laga daawan doonaa barta loo yaqaan Netflix taariikhda markay 4 bisha December ama dabiiqada sanadkan laakiin goosgoos laga soo bandhigay maalmo ka hor wuxuu keenay filimkan ciwaano waali inuu qaato wali waxa aad loo amaanay kaalinta doorka superhero uu matali doono actorka lagu magacaabo Tovino Thomas filimka lagu magacaabo Minal Murali haatan ciwaankiis aad iyo aad u sareeyo wuxuuna ka mid yahay goosgoosyada dhawaanahan soo bandhigeen barta Netflix ee sida waalida loo daawaday saadarta reer Malayalam iyo dhammaan fanka Hindi ka jiro waxay bogaadinayaan ikhtiraacda dabcan uu la imaaday ninka lagu magacaabo Tovino Thomas oo noqday atoorihii ugu horeeyay oo ka soo jeeda fanka loo yaqaan Bollywood ama Malayalam oo xaruntooda ay tahay gobolka Kerala kaasoo dabcan door superhero shaashada ku matali doono Bollywoodka lagu magacaabo superhero waxay qabaan Hrithik Roshan iyo Krish qabaan xitaa Taaga Shroff isku dayay oo filimkii Flying Jad la imaaday hadda Ranbir Kapoor wuxuu soo wadaa filimka Brahmastra laakiin markii la joogo daawadayaasha nabad dhankaasi koonfur Hindi gaar ahaan fanka Malayalamka waa dabcan filimkii ugu horeeyay big movie ah oo ay superhero ku matalaan doorkan waxaa si geesinimo ku dhahan u matalay Tovino Thomas taasoo keentay shirkadda Netflix inay mashruucan ka helaan lacag fara badan ay ku iibsadeen filimkan tiyaatarka lagama daawan doono OTT ama internetka laga daawan doona mashruuca lagu magacaabo Minal Murali haduu alla idmo 4 December 2021 ama dabiiqada sanadkan ugu dambeyntii waxaan soo qaadanaa superstar-ka xarakada looga haray Ravi Teja oo horaantii sanadkan filimkiisii Crack Blockbuster noqday hadda wuxuu ku dhawaaqay filimkiisa 7aad sidoo kale Ravi Teja filimkan wuxuu ka yahay producer sidoo kale wuxuu shaaca ka qaaday 5 bisha November ee nagu soo fool ama jimcada nagu soo fool in dabcan shaaca laga qaadano title-ka filimka magacan laakiin hadda kaartada la soo sawir waxaa lagu qoray Heroes Don't Exist geesiyaasha ma jiraan waxaa laga yaabaa filimkan Ravi Teja inuu ku matalay qof aan la arkin waxaa laga yaabaa filimka cabsi inuu yahay laakiin sida hordhac haatan lagu ogaaday mashruucan waxaa la sheegay inuu yahay action iyo qiyaano isku jirto Ravi Teja wuxuu ka yahay producer ninka lagu magacaabo Sudhir Farma director ka ah maalmaha nagu soo fool ama jimcada nagu soo fool magaca filimkan lagu dhawaaqa waana filimka 7aad Ravi Teja hogaamiyay ka yahay Ravi Teja daawadayaasha qamada haatan waxaa u diyaarsan 5 filim oo shaqada uu wada qaarkood uu dhameystir waxaa ugu horeeya filimka lagu magacaabo Qilaadi oo laga yaabo dabiiqada sanadka in la daawado wuxuu kale haatan duubis ku wada labada filim ee la wada sugayo kuwaas oo kale ah Ramara Unduity iyo mashruuca lagu magacaabo Dhamaka marka Ravi Teja asigoo 3 filim gacanta ku haysto ayuu hadda mid kale afaraad ku dhawaaqay oo dabcan haduu alla idmo jimcada nagu soo fool tafaasiil dhameystir mashruucan laga heli doono inkastoo dabcan haatan kaartadan laga soo bandhigay sida muuqato ugu dambeyntii daawadayaasha qiimaha badan yaanay ka tagin Today in History maanta kale taariikhan waxaa soo baxeen 3 filim noocaan oo dabcan isku maalin la daawado waxaan la daawada Festival Diwali sanadii 1997 taariikhda markay 31 October 1997 filmadan xiisaha badan isku dhaceen waxay kala Dilto Bagalhe oo Shaaruqan hogaamiye ka ahay Bayi oo Silma Sheeti waday iyo sidoo kale filimka lagu magacaabo Gulam ee Mustafa Kaaso hogaamiye ka Yashwanti Dilto Bagalhe wuxuu noqday blockbuster taariikhi wuxuuna soo xariisay u diiwaan gashan 34.97 karoor ayadoo lagu qarash galiyay filimkan 9 karoor Maduri Dixie Karisma Kapoor dabcan Shaaruqan la wadeen Yash Jabra wuxuu ka ahaa director iyo producer sidoo kale saami ahaan waxaa laga helay filimkan 22 karoor waxaa tigid goosteen 29,512 qofood
dilto baagale lacagtii 34.97 karoor uu keenay 24 sano kadib waxay u dhigmataa 295 karoor. dhinaca kale filimka Bayo Sunil Shetty hogaamiyay asigana wuxuu noqday filim guuleysto oo Samihida wuxuuna soo xareeyay 8.40 karoor ayadoo mashruucan lagu qarash galiyay 4.75 karoor. filimkan sidoo kale Sonala Badri, Pooja Batra, Kunal Qiimo, Shakti Kapoor iyo jiray kale kula jireen waxaana director producer-ka ninka lagu magacaabay Deepak Shiv Dansani. filimka Bayo saami ahaan waxaa laga helay 4.40 karoor sidoo kalena waxaa tigidh u goosteen 7,847,000 qofood. lacagtii 8.40 karoor oo kana filimka Bayo muddo haatan laga joogo 24 sano kadib waxay u dhigmataa 78 karoor. ugu dambeyntii filimka lagu magacaabo Ghulam ee Mustafa asigana wuxuu noqday filim guuleysto oo Samihid waxay ka dhigantay feestadii Diwaali 1997 cid qasaarta ma jirto. filimkan wuxuu soo xariyay Ashwanta hogaamiyay Kamanana Batekar 8.80 karoor waxaa lagu qarash galiyay 5 karoor bar waxaa kula jira Ravena Tondon iyo Barashwal. mashruucan xisaab badnaa saami ahaan waxaa laga helay 4.66 karoor waxaa tigidh u goosteen 7,974,000 qofood. lacagtii 8.80 karoor uu keenay Ghulam ee Mustafa muddo haatan laga joogo 24 sano kadib waxay u dhigmataa ku dhawaad 80 karoor. saaxiibada qiimaha badan guud ahaan barnaamijka aynu kula wadaagaynay sheekooyinka xiisaha badan ee Bollywoodka koonfur Hindi ka jiraan intaasan ku soo celinayna. fadlan daawada haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe inoo saar saaxiibada joogtada nagu xira muuqaalka noo sheer gareeya waa ku mahadsantihiin daawashadiina. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.